qaar ku mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo madooyinkan dambe hoolasha ganroogi degmada Buurakaba ee gobolka Baaya iyo way bayoge ka booqasho ka sadana isbitaalka degmada Saytiya sida faafaynta warkun degmada Buurakaba ee gobolka Baaya hanin ku diriya Cabdikariin Maxamed Nuur geeka booqasho wasiirada ka sadana isbitaalka guud ee degmada Buurakaba ee gobolka Baaya iyo isbitaalka dhawaan la hirgeliyay degmada Buurakaba ee Hakaba Health Center isbitaalka dhawaan la dhisay ee Hakaba Health Center yana wasiirada waliba ka dhawaayay agaasimaha guud ee isbitaalka Ibraahim Macaawiye oo faafayn ku sii qaybo shal duwan isbitaalka Hakaba Health Center isbitaalkii Hakaba Health Center wada jaaris margalidi may badaawayaane shacabkii degmada Buurakaba gaaran meel si fadhiyo ku inshallah bulmiyo hadda nasuulna ay banintaab galiyay sida quruxda badan nin soo biyay qalad gaaray isna may basin ma hadlagaane booqashada kana booqatay saasato garoonka diyaarado degmada Buurakaba oo si shoy hore aan ka bilaabay maamulkii hore degmada mudana hakadka jari yana booqasho ka sadan wasiirada aan ka dambeyntii wasiirada waliba iyo booqdana isbitaalka guud ee degmada Buurakaba oo ka dhawaayay kusimaha agaasimaha isbitaalka Maxamed Iisa Aamina waliba wasiirada booqdana qaybo shal duwan ee isbitaalka waliba xaaladda caafimaad degmada Buurakaba iyo xaaladda isbitaalka warbaahinta Koonfur Galbeed faafayn ku siiyay Maxamed Iisa Aamin kusimaha agaasimaha isbitaalka guud ee degmada Buurakaba isbitaalka degmada Buurakaba may boobiya qaybo bukaan soo eegta bukaan jiif qaybta nutritionka qaybta PNC-ga iyo 22 saldhig oo dardaryaalaha tuulooyinka kalana daawooyin meelanka jeena meelanka tababaro Buurakaba 375 tuulo waay xarunta ugu weyn oo isbitaalka weyn oo dadka kooyan oo daawada ka qaadaya qaybta nutrition quudinta inta waay marka qaybahaas aan shalbaa in patient department OPD qaybta TB-da qaybta bukaan jiifta inta aan shalbaa gabagabadii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi oo hogaamiyay safarka yana warbaahinta Koonfur Galbeed oo ku warbi booqashadii oo ka sadan isbitaalada Hakaba Health Center iyo isbitaalka guud ee degmada Buurakaba idan ma sintin dhamaatin kulli farxad weyn aniga اسبوع ilaa lama soo ka soo degmada Buurakaba tan geekaynu aan daadeg maadaama ay leeyahay sidii bulshada xaaladda isbitaalada iyo ogaadanayn way eedan kama anagaan ay leeyahay dhaqaatiirtii iyo kalkaaliyaashii dhammaan isbitaalada shaqeeya gaasna soo kala may mahad balaaran injeediyaan ay leeyahay qadar jaarti suurta gelidi dadkan deegaanada geekaynu ay leeyahay service adeeg nooc ay u baahan yihiin sidoo aragayn dadka ilaa 100 kilomitir 100 kilomitir ku wayaan waana isbitaal standard shay qalabka yaali daawooyinkeeda idan kama sintin weylana ma ilahay shaqadiisan bulshada haytan way rajeeydoon balaaran insan haytan saasoo kala dawladana insha Allah walaayisan ku baahtan gacan mar walba diyaarsan naga doonta maamulka cusub degmadana saasoo kale insha Allah way rajeeydoon gacan ku baahtan insan saasanaystaan idan ma sintin way rajeey insha Allah ta'ala ani naga doonto Buurakaba dawladda kana naga doonto laakiin amaanti iyo ma ilahay walba way isku lahaa isan oo dhawr adeegdan leedahay deegaanka idan ma sintin booqasho weyning ee town ma ilahay muddo lama toddobaad Buurakaba roob oo ku galayn xaaladda nolol bulshada qaybaha shishal oo aragna isbitaalada waa barashada jidida meelooba nooc kasta nolol maadaama ma ilahay waqtilaha ma ilahay la diri state-ki oo madaxweynaha dowladda gobolka Koonfur Galbeed Soomaaliya aan diri degmadan si ma ilahay maamul jeena wanaaji dawlad ahaan la warhay xaaladda amniga dhaqaale iyo nabadgelyo iyo caafimaad iyo waxbarasho idan ma sintin weylana ma ilahay idan ma sintin Cabdikariin Maxamed Nuur Absa telefishinka raadiyaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya degmada Buurakaba gobolka Baay